kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door kulan galka wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah khayro oo booqday ciidamo cusub oo dowladda federaalka Soomaaliya u diyaarisay howlgallo cusub madaxweyne Waaro si degdeg ah ugu laabtay beledweyne xilli ay ka taagan tahay xiisad xooggan xiriirka Mareykanka iyo ciidamadii Muqtaar Roobo maxaa ka socda abal sargaal ka tirsan militariga dowladda federaalka Soomaaliya oo weerar ku taliyay Zakiya Xuseen Axmed qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal galka wararka haddii aad ku cusubtay waxaa saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqo ah iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya balse aan ku bilaabo dowladda Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xirada tababarada General Gordon ku booqday ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo diyaarinayo howlgallo ay argagixisada ugu xoreynayaan deegaanada ay ugu dhumaalaysanayaan dalka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ciidanka ugu tagay in uu ku dhiirigeliyo shaqada ay qaranka u hayaan iyo inuu ogaado baahiyaha ay qabaan isagoo kula dardaarmay ciidanka xoogga dalka in ay hayaan shaqada ugu muhiimsan ee dalka maadaama iyaga dhigooda lagu nasanayo ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Khayre oo qudbeynayay askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka ciidanka ayuu Ra'iisul Wasaare u ballan qaaday inuu xuquuqdooda si joogto ah u heli doonaan baahiyaha qalabna ee ay qabaan loo diyaarinayo si ay dalka iyo diinta ay cadowga u difaacaan dowladda Soomaaliya oo ciidanka ku sameysay dib u habeyn ballaaran ayaa wada qorshe dalka lagu xoreynayo kooxaha argagixisada arintaasi oo qayb weyn ka halbeegyada tubta amniga iyo hanaanka ciidamada Soomaaliyeed oo ay ula wareegayaan mas'uuliyadda dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si degdeg ah dib ugu laabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa garoonka ku soo dhaweeyay wasiirro xildhibaano iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Caraale dib ugu soo laabashada madaxweyne Waare ee magaalada beledweyne oo dhowr maalmood ka hor safar dalka Kenya ugu maqnaa ayaa waxay ku soo beegantay xilli magaalada beledweyne ay ka socdaan banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka Hirshabelle dadka banaanbaxaya oo taageersanaa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa gubay taageero iyo waxyaabo kale oo ay ka dhigayeen dibadbax xooggan shalay dagaal khasaare geystay ayaa duleedka magaalada beledweyne ku dhaxmaray ciidamo kala taabacsan Yuusuf Dabageed iyo ciidamada ammaanka Hirshabelle xiisada ka taagan magaalada beledweyne ayaa salka ku haysa xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo diiday xilka qaadista waxayna ciidamada taabacsan ay ka wadaan gudaha iyo daafaha magaalada dhaqdhaqaaqyo ciidan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaaw ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan gaashaanle dhexe Maxamed Macow kaasoo lagu dilay iska horimaad ka dhacay Kalabayr Cali Guudlaaw ayaa ku amray ciidamada amniga inay gacanta ku soo dhigaan ciddii ka dambeysay dilka taliyaha sharcina la soo taago deegaanka Abal oo dhowr kiiloomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa ku sugan ku dhawaad 500 oo askari kuwaas oo ka tirsanaa ciidamadii Sheekh Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo 2 sano ka hor isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya ciidamadan oo aad u qalabeysan ayaa wali ku sugan furmihii dagaalka iyo jiida hore ee aaga dagaalka kuwaas uu sameeyay ku dhawaad 10 sano ka hor Sheekh Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur kadib markii uu la dagaalamay al-shabaab caasimada ayaa ogaatay in ciidamada Abu Mansuur ay ka helaan taageero caalami ah oo dhan kasta taas oo fududeysatay in ay ku sii jiraan difaaca aaga xataa haddii la xiray Abu Mansuur oo ahaa hogaamiyahooda deegaankaasi ku abuuray baaritaan dheer oo ay sameysay caasimada ayaa waxay ku ogaatay in ciidamada Sheekh Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur ay gacanta ku hayso dowladda Mareykanka isla markaana ay bixiso wax kasta oo ku baxa waxyaabaha ay sida joogtada ay u helaan ciidamada Abu Mansuur waxaa ka mid ah mushaar ku filan qalab ciidan iyo garaam ku filan sidoo kalena ciidanka ayaa laga caawiyaa dhinaca xogta iyo haddii ay dagaal galaan wararka qaar oo la ogaaday ayaa waxaa ka mid ah in diyaaradaha Mareykanka iyo taliska Africom ay amar ku qabaan in ay difaacaan weerar kasta oo ay ciidamadaasi la kulmaan ciidamada Abu Mansuur isbaaro uma taala canshuur ama lacag kale dadweyne kama qaadaan xoolana ma laha mana jirto meel ay ka soo gasho lacagta ay qaataan oo aan ka ahayn taageerada Mareykanka hadda ugu horeyso in Mareykanka uu taageero ciidamada Abu Mansuur balse waxay caasimada ogaatay in sanadihii ugu dambeeyay walkaasi ku caawin jiray taliska ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya kuwaas oo la soo gaabiyo Africom madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaabilay dood ka soo gudubtay oo ay xalin waayeen taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Bashir Americo taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Saadiq John iyo taliyaha militariga Soomaaliya General Indha Qarshe taas oo salka ku haysa askari dhamaadkii Ramadaanka lagu dilay gudaha suuqa degmada Xamarweyne warbaahinta ayaa ogaatay in madaxweynaha Soomaaliya oo kulan la qaatay taliyaha guutada 14 Oktoobar
oo lagu magacaabo Axmed Gaashaan kaas oo maalmo ka hor ku hanjabay in uu weerari doono taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliiska Soomaaliya Jarnaal Zakiye Xuseen Axmed iyo taliyaha saldhigga degmada Xamarweyne. arrintan ayaa ka dhalatay israsaaseen dhexmartay ciidamo ka tirsan guutada 14 Oktoobar iyo ciidamada booliiska degmada Xamarweyne taas oo dhacday dhamaadkii bishii Ramadaan. israsaaseentaasi waxaa ku dhintay askari ka tirsan ciidanka Axmed Gaashaan oo ka adeeganayay suuqa. taliye Axmed Gaashaan ayaa ka hor intaysan ciidamada suuqa soo aadin wuxuu soo wacay taliyaha saldhigga degmada Xamarweyne wuxuuna ku wargeliyay in ciidamo kuwiisa aqoonsi wata sidoo kale loo tilmaamay oo gawaarida suuqa ay la soo aadi doonaan. taliyaha saldhigga oo aqbalay arrintaasi ayaa sidoo kale la sheegay in ciidamadiisa ay ku soo wargeliyeen burca suuqa soo gashay isagoo amray in la qabto ama la toogto. waa qodobka lagu haysto taliyaha saldhigga degmada Xamarweyne Jarnaal Zakiye Xuseen Axmed oo taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa iyadana lagu haystaa qoraal ay soo dhigtay barteeda internetka oo ay ku sheegtay in la toogtay askari ka tirsan kooxda burcadka mid kalena la qabtay. waa dooda kale Axmed Gaashaan. madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in arrintaasi gaartay isla markaana uu dalbaday in uu wax ka qaban doono. wararka la helayo ayaa sheegay in arrintaasi ay sababi doonto xilka qaadista taliyaha saldhigga degmada Xamarweyne. taliyaasha booliiska iyo militariga Soomaaliya ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay wixii ka dhacay iyagoo cadeeyay in qaladka ka jira dhanka booliiska balse uu xalkii diiday Axmed Gaashaan isagoona dalbaday in la toogto askarigii dilay askarigiisa ama dagaal kale uu dhici doono. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka. intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.